asalaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idiin salaamayaa saaxiibayaal kusoo dhawaada warka xogta dalka qodobada aan idiin soo gudbinayo waxaa ka mid noqonaya gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxa uu ka hadlay haddii mudaxileedka dowladda federaalka soomaaliya loo kordhinayo iyo haddii kale saaxiibayaal waxaad daawan doontaan wararkii ugu dambeeyey qaraxyo ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia lagula eegtay gobolka Bay hogaamiyaasha Ethiopia iyo waliba Eritrea oo qorsheynaya afduub ka dhana hogaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Madoobe ciidanka AMISOM oo mar kale waqtiga loo sii kordhiyay si ay markaasi ula dagaalamaan xarakada al-shabaab ka joogay qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya imaamka beelaha Mundulood waxa uu dalbaday hal arin oo ku aadan dhacdadii ka dhacday deegaanka Gololey ee duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doontaan saaxiibayaal kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan taariikhda waxa ay ku beegan tahay 30 May sanada 2020 saaxiibayaal halkan waa channelka xogta dalka haddii aynu ku bilaabno saaxiibayaal waxaa jirta hadal ahayn xoogan oo la xiriirta in xukuumadda uu hogaaminayo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay doonayso muddo kororsi mowduucaasi ayaa noqday kan loogu hadal haynta badan isbuucyada la soo dhaafay ee gudaha magaalada caasimadda Muqdisho guuxa arintan ku saabsan ayay hadal hayaan mucaaradka waliba dadka daneeya siyaasadda Soomaaliya balse ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka go'an tahay in sanadka gudihiisa ay qabanayso doorasho markaasi ay ku qanacsan yihiin dadka Soomaaliyeed sida lagu qoray website-ka ee BBC-da ee qaybta afka Soomaaliga gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu aaminsan yahay inaysan dhici doonin dib u dhac markaasi doorashada sanada 2021 dib u dhac ku yimid khilaafka baarlamaanka ayaa dhaliyay walaac ku saabsan in dib u dhac ku yimaado doorashada sidoo kale waxaa jirta in laga cabsi qabo saameynta xanuunka COVID-19 awgiisa in doorasho dib loo dhigo balse maamulka dowladda Soomaaliya waxa ay sheegeen in markaasi loo baahan yahay in waqtigeeda ay ku dhacdo doorashada Soomaaliya si kastaba gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mursal waxa uu diiday in dib u dhac doorashada markaasi ay dhacdo waxaana uu aaminsan yahay in xal loo heli karo doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo waxaan rabaa in hal qodob si fiican loo fahmo sharcigana doorashada waxa loogu talagalay baarlamaanka Soomaaliya oo kala ah golaha shacabka waliba golaha aqalka sare muddooyinkii ugu dambeeyay ee aan ka soo gudubnay oo ay markaasi ku beegnay 2016 doorashada la aadi jiray waxa ay ahayd doorasho dadban marka iminkan waxa la dooranaya 275 xildhibaan oo golaha shacabka ah waliba 54 oo aqalka sare ah sidaasi awgeed waxa ila tahay in taasi xal loo helo in doorasho markaasi waqtigeeda ay ku dhacdo waxa uu yiri gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan magacawnay guddi ka soo shaqeeyay qodobada ee ka dhima sharciga doorashooyinka iyagoo kaashanaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka hawshana way wadaan ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu dambeyntii gudoomiyaha waxa uu meesha ka saaray in muddo kororsi ay helaan baarlamaanka iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wadankan dastuur ayuu leeyahay dastuurkaasina xilli ayuu ugu talagalay madaxda xilhaynta baarlamaanka iyo waliba midda madaxweynaha ayuu yiri gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan dowladda kale hadii aynu eegno faahfaahin dheeraad ah waxa ay ka soo baxayaan weerar loo adeegsaday qaraxyo oo mar kale lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia oo ku sugnaayeen duleedka degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay ka tirsan qaraxyada oo ahaa nooca miinad dhulka lagu aaso ayaa waxa lagu soo waramayaa inuu ka dib xigay dagaal toos ah oo dhaxmaray ciidamadaasi waliba dagaalyahana ka tirsan xarakada al-shabaab wararka ayaa sheegaya in qaraxyadaasi waliba dagaalka xigay uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac balse aan la xaqiijin karin inta uu leeyahay dagaalka dhaxmaray ciidamada dowladda Soomaaliya ciidamada AMISOM iyo waliba ciidamada Ethiopia iyo waliba xarakada al-shabaab ku sugan qaybo kamid ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhinaca kale xarakada al-shabaab oo war ka soo saaray weeraradaasi ayaa sheegtay in ugu yaraan ilaa 4 qarax ay la eegteen ciidamada Ethiopia ee qaybta ka howlgalka AMISOM isla markaana ay gaarsiiyeen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada dowladda iyo waliba kuwa AMISOM oo ku aadan dagaalka iyo waliba weerarada ay ka geysteen xarakada al-shabaab qaybo kamid ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale arbacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale ciidanka Ethiopia qaraxyo lagula eegtay duleedka degmada Bardaale xilli ay ka soo ambabaxeen gudaha degmadaasi xarakada al-shabaab ayaa had iyo jeer weeraro ku dhufo iyo ka dhaqaaqa waxa ay ka sameeyaan
qaybo ka mid ah deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo badi ku sugan yihiin ciidamada Ethiopia. Waayahay saaxiibayaal, markan haddii aynu eegno hogaamiyaha dalka Eritrea weliba ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia waxa ay qorsheynayaan inay afduubtaan hogaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. mas-uul ka tirsan xisbiga ka howlgala gudaha dalka Ethiopia ayaa shaaciyay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed weliba madaxweynaha Eritrea Azaziya Afwerki in ay isla gaarteen qorshe lagu afduubanayo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. sidoo kale mas-uulka waxa uu tilmaamay in arintaasi fulinteeda loo saaray ciidamada sida gaarka u tababaran commandoska Ethiopia balse ay ku fashilmeen kadib caqabado soo wajahday sida uu hadalka u dhigay mas-uulka. ma shaacin mas-uulka xilliga rasmiga ah ee la diyaariyay ama la maleegayo qorshahaasi. Abiy oo wehelinayo Afwerki waxay qorsheynayaan in ay Kismaayo ka soo afduubtaan Axmed Madoobe. tani waa heerka halista ah mas-uul ka tirsan dowladda Ethiopia oo arintan soo bandhigay. ugu dambeyntii waxa uu siyaasigan aad u dhaliilay dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya weliba kuwa Ethiopia ee lagu daabulayo qaybo ka mid ah gobolka Gedo. arintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo weli halkiisa uu yahay khilaafka Axmed Madoobe ee ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya hogaamiyaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan xiriir wanaagsan la leh wadamada Ethiopia weliba Eritrea. arintan ayaa walaac xooggan waxay ka muujiyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta dowladda Soomaaliya oo waxa ay sheegeen sidee ayuu u afduuban karaa hogaamiyaha maamulka Jubaland. hogaamiyaasha Ethiopia weliba Eritrea way ku qaldan yihiin ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan mas'uuliyiinta ugu sarsareeysa. waayahay saaxiibayaal, markan haddii aynu eegno golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay mar kale muddo kordhin cusub u sameysay howlgalka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya kadib kulan dhanka internetka oo ay yeesheen 19 bishan aynu ku guda jirno. xubnaha golaha ammaanka ayaa isku raacay in muddo 9 bilood ah oo hor leh loogu daro ciidanka AMISOM si ay qayb ugu noqdaan inay markaasi la dagaalamaan xarakada al-shabaab sidoo kale ammaanka dalkan ay xoojiyaan. sidoo kale sababta ayaa waxa lagu sheegay in lagu taageerayo muddo kordhinta loo sameeyay ciidamada AMISOM ammaanka doorashooyinka Soomaaliya taasi oo lagu wado inay dalka ay ka bilaabato dabiiqada sanadka 2020 ilaa iyo sanadka xiga 2021. waxaana AMISOM ay sheegtay in arintaasi ay ku qanacsan yihiin iyadoo ay ku qanacsan yihiin inay sii joogaan gudaha dalkeena Soomaaliya. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in muddadaasi ee 9 bilood ah ay ciidamada AMISOM qaban doonaan shaqooyin ay ka mid yihiin in ay dib u habeen ku sameeyaan howlaha lagu taageerayo qorshaha kala guurka sida xaaladda nabadgelyada hagidda weliba caawinta ciidamada ammaanka Soomaaliya. AMISOM waxaa dalka ka jooga ku dhawaad 20,000 oo askari wuxuuna qaraarkan loogu sameeyay waqti kordhinta uu qeexaya inay Soomaaliya ka bixi doonaan 2021. ciidamada AMISOM oo dalka jooga muddo in ka badan 10 sano ayaa dagaal adag kula jira dagaalyahanada hubeysan ee xarakada al-shabaab ka jooga qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya. badi xarakada al-shabaab qaraxyo kala duwan iyo weliba weeraro kala duwan ay ka geystaan goobaha ay kaga sugan yihiin AMISOM. waayahay dawadayaal, markan haddii aynu eegno imaamka beelaha Mandulood ee Imaam Maxamed Yuusuf oo wareysi gaar ah siinayay mid ka mid ah tifiyada ka howlgala gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa si adag uga hadlay falkii lagu laayay dhalinyaradii lagu xasuuqay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan. imaamka ayaa ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya in ay markaasi dejiso baaritaanka ku aadan dhacdadaasi si cadna markaasi loo marsiiyo dadkii ka dambeeyay falka ee markaasi lagu fuliyay 8 dhalinyaro ah ee ku noolaa deegaano markaasi ee hoos yimaada deegaanka Gololey. sidoo kale wuxuu tacsi u diray ehelada qaraabada iyo weliba ummadda Soomaaliyeed oo ay ka baxeen raggii dhalinyarada ahaa ee markaasi lagu laayay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. wuxuu yiri aad baan ugu xunahay dadkii dhalinyarada ahaa ee lagu laayay deegaanka Gololey, tacsi ayaan hawada u marinayaa ayuu yiri imaamka beesha Mandulood. ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay dowladda dhexe in ay il gaar ah u yeelato dhacdooyinka noocan oo kale ah inta badan ka dhacda qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. falkaasi oo ahaa mid argagax leh ayaa waxaa lagu eedeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya inkastoo war ka soo baxay taliska xooga lagu beeniyay eedeyntaasi. guud ahaan saaxiibayaal, warkii aad kala socoteen channelka xogta dalka waan igeenta anigoo Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa idin soo codsiinayay saaxiibayaal warkiisa xiga noole kulanti.